walaalaha Markacadey oo sanad kasta ciyaalka agoonta u qeybiya dhar ay ku ciidaan ayaa maanta dhar ciidsiin ah loogu qeybiyay beerta Markacadey oo ku taala degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose. Sayid Axmed Mukhtaar Shuutaale iyo Warde Ismaaciil Axmed oo goobjoog ahaa ayaa waxay sheegeen in ay aad ugu faraxsan yihiin in markasta la garab istaago ciyaalka agoonta ah. Sayid Axmed Mukhtaar Shuutaale oo ka wakiil ahaa dharkan loo qeybiyay ciyaalkan ayaa ugu horeyn u mahadceliyay walaalaha waxqabadka Markacadey. wixii noo ahaan maanta sanadka walba aan bixin jirnay ilmaha agoonta dharkoodii ciida aan diyaar u nahay maanta inaan bixino. waxaa joognaa beerta nabadda Markacadey maasha Allah ilmihii waa kamliyihiin waa joogaan biidnillaahi alkariim sanad walba saa ugu farxin jirteen ilaahay idinkaga farxiyo idinkana hadda dharkii gabdhaha iyo wiilashii waa haynaa waa kana waxaa maanta marti noo ah marka nala joogto gudoomiye ku-xigeenta ururka haweenka ee gobolka Shabeellada Hoose ayla joogto Warda Ismaaciil maanta ku soo dhaweynay si ay nooga qayb qaadato farxadan aan qabno oo ilmaha ciida maasha Allah Warda soo dhawaaw insha Allah biidnillaahi alkariim waxaan dhameystiraynaa inaan bixin doono dharkii ilmaha oo aad ugu tala gasheen ciidan san walbana aad u dhiibi jirteen insha Allah waxa Ilaahay idinkaga baryeynaa intii ka qayb qaadatay amba dacmi ka dhiibtay amba ugu tala gashay ilmaha inay farxaan ayagana maalinta qiyaam inuu Ilaahay ka farxiyo awaalkooda ugu dhigo jannatul firdaws al-a'la insha Allah billahi alkariim. Gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka gobolka Shabeellada Hoose Warde Ismaaciil Axmed oo iyana u mahadcelisay walaalaha waxqabadka Markacadey ayaa waxay sheegtay in degmada Marka ay ka wadaan caawinta dadka danyarta iyo bilic soo celinta magaalada. Ilaahay mahad u sugnaatay. Waxaan ku suganahay beerta nabadda. Waxaan si weyn ugu mahadcelinayaa walaalaha waxqabadka Marka. waa walaalo wanaagsan oo mar walba garab istaagan agoonta dadkii danta yar bilic soo celinta magaalada. waa tiim mar walba u taagan horumarinta degmadooda. waxaan leeyahay waa dad mudan in lagu daydo, waa dad mar walba kheyr ka baafiyo, waa dad mar walba u taagan walaalahooda dhinac kasta ahaato. waxaan leeyahay dhammaan tiimkaasito aad iyo aad ugu mahadsan yihiin casuumaadda sharafta badan ee halkan ay ugu casuumeen maanta inaan ka qayb qaato. waxa ciidsiinta caruurta la siinayo loogu farxinayo wallaahi dareenkay lama soo koobi karo. aad iyo aad ayaan u faraxsanahay. insha Allah waxaa gudagaleynaa barnaamijkeena quruxda badnaan la qaadanayna caruurta agoominta. wallaahi aad ugu faraxsana shucuurteeda xitaa lama soo koobi karo. insha Allah waxaan u mahadcelinayaa baabaheeni Allah dhaafo Sayid oo mar walba garab istaagsan bulshadiisa u dadaalayo. waxaan leeyahay baaba jari xasanaad inuu la soo koobi karin ilaaha kaasiyo. aad iyo aad ugu mahadsantiin dhammaan walaalaha waxqabadka Markacadey casuumaadda sharafta badan ay bixiyeen waan kaaga mahadcelinayaa. insha Allah intaan in ka badan waan laga sugayaa. waxaad tihiin horumarkii maanta, waxaad tihiin ifteenkii maanta caruurtaas iyo degmadaasitana maanta ilaahay ka soo adinkay wax idinka sugayaan. waxaad jecelnahay intaan wax ka badan inaad qabatiin waan igu sii dhiirigelinaa. aad iyo aad u mahadsantiin. walaalaha waxqabadka Markacadey oo ah dad ku bahoobay caawinta iyo horumarinta degmada Marka ayaa markasta ka qayb qaata horumarinta deegaanka. Xuseen Ali Geesi, Arladi News, degmada Marka.